jacaylada nin sheegay dhageysta qiso cajiiba nin waxaa la oran jiray magaciisa qays naag buu aad u jeclaa layla la oran jiray layla gabadha laakiin boqor baa dhalay isagu laakiin waa miskiin boqorkii baa inantiisii ku yidhi aabbo waad qaan gaadhay haddee toole soo kuma dhiso markaabay tiri aabbo ninkaad ii dhisaysid anaa kuu sheegay markaas waa ninkee qays baan jeclahay tiri qayskee askartii iyo ciidankii qays ma taqaan markaa mid miskiin oo magaalada dawarsada aabba ma adoo ina boqora qays jeclaan buu ku yidhi magaceenni baad biisay buu yidhi waxay tiri ninkaan inaan ahayn anigu guurkiisa uma fadhiya ninkaa mooyaane maxabada beenbeenta iyo maxabada runtan qisada usoo qaatay dhegaysta waa qiso macquulana marka la eego runtii oo caqligal ah oo wax lagu fahamsiinaya innaka gabadhii way weynaatay ninkiina uu iska waashay gabadhii waa loo diiday moogtahay xayraan buu noqday isaguna timo raanuu la baxayo qasriga boqorku ku wareegaa isagoo markaa magaceega ku celcelinaya xataa maalin baa la arkay isagoo gidaarkii dhudhunkanaya darbigii kaasaa dadkii ku yidhaha warqaysow darbiga maxaa la dhunkano curi darbigana gidaarkana dhunkanayo siijeedkiisa layla ku ciyaarayso fadhida buu yidhi waa cajiib soo ma haddana maalin kalea la arkay ay isagoo dhudhunkanaya war aygana dhunkanaysana muxuu yahay waaladii ma ay bay kula gashay wuxuu hi aqalka layla ay ku jirtu ka soo baxay buu yidhi dhegaysta tu soo socotaa ka cajo badan gabadhii boqorkii si walba markuu dhinac walba kaga keenay wiilashii ay dhaleen madaxdu iska diiday ayaa boqorkii waxaa lagula teliyey marba hadday gabadhani waa ta weynaatee ninkana waalidiisu waali sii dheerba ma ahayn hala dabiibo oo timahana ha laga xiiro aqalka ha la soo geliyo waa nin iska qurux badane ha la dhiso gabadhana ha loo dhiso dhallinyaradii magaalada markaa waxay ogaadeen inuu boqorku rabo inuu qays hadeetola gabadhu iskaga dhiso boqorkii markaa ciidan buu diro wuxuu yidhi haddaba ninkii qays ahaa soo qaado aqalka soo geliya geed uu markaa hoos deganaa waxaa loogu yimiday 20 nin oo qays u wada eg dharkiisii bay wada xidheen waa dhallinyaradii sida dhallinyaradeenu iminka kuwa gaalada isku ekeysiyaan maad arkin kuwa kubadaha ciyaaro iyo kubaddu maxay tahay waa lastiig hawo lagu shubay soo ma kuwa waxaa dheeldheele ee noloshoodiiba waxaa ku dhammaystay ayay dhallinyaradeenu qaarkood ay horumar moodaan isku ekeysiiyaan gaal weliba gaalnimadiisu waxa u sii dheer waa shahawaani lastiiggaa yaree hawada laga buuxiyey ayuu wax isku mooday oo isku qiimaynaya markaasay dhallinyaradeenina ku daba lumeen waxaad ogaataa dhegayso almar'u maca man axabba yowma alqiyaama buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid nebiga oo yidhi nebi allow nin baa dad jecel laakiin darajadoodii camalkooga ma samayn karo ee nebi allow maxaad odhan lahayd markaa buu nebigu yihi cidda uu qofku jeclaaduu qiyaamaha la joogsanaya buuhi meel haddaad kuwa heesa aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi haddaad kuwa kubadda ciyaara aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi haddaad siyaasi jeclaato qiyaamaha siyaasigaad la soo bixi haddaad qabiili jeclaato qiyaamaha qabiili baad la soo bixi haddaad culammada rabbaaniyiinta jeclaatana yaka qiyaamahaad la soo bixi haddaad abibakar iyo cumar jeclaato abibakar iyo cumar baad qiyaamaha la soo bixi haddaad nebi maxamed jeclaatana muxamed calayhi salaatu wasalaam baad la soo bixi insha allah dhahada markaa dhallinyaradii maadaama ay maqleen boqorku wuxuu damacsan yahay inuu ninkii qaysee waallaa uu gabadhiisa iska siiyo isagoo kale markaa iska soo dhigeen halkii la filayay isaga in loogu tagaayo 20 nuuciisiyaa loogu yimiday markaasuu mid walba leeyahay warde qays waa aniga markaasaa la dawakhay waa isku dhar waa isku timo waa isku hadal waa isku gadh si midaad
boqorkii baa loo noqdo la yidhi boqorow meeshii nin keliya ma fadhiye 20 baan helay 20 nin oo wada qays ku yahayna anagu garan mayno boqorkii baa inantii u yimid aabo ninkii 20 buu noqday waxay tirin anaa garan qayskii dhabta ahaa anigaa garanaye nin walba soo qaado qol ku xereeya qol baa lagu xereynayaa qol dhagaysta waad maqlaysaan insha allah markaasaa nin walba qolka lagu xereeya waxa loo geynayaa nin xoog leh oo seef wata ayaa loo geynayaa markaasaa su'aal baa la weydiin oo la leeyahay ma qays baa tahay markaasuu leeyahay qays baan ahay anaa qaysa waxa kale waa beenaalayaal markaasuu leeyahay haddaad qays tahay oo leyla aad jeceshahay waxay kaa tiri jirhkaaga badh ii soo goo musa waad qososheene kii horreeyaa loo yimid ma qays baa tahay ha qays baan ahay le laba ninoo xoogla loo keeno sayf wadata ma ogtahay oo askara waana aqalkii boqorka waa la soo xereeyay lama baxsan karo ma qays baa tahay haa gabadhii waxay ku tiri haddaad qayskii dhabta aad tahay jirhkaaga badh ii soo goo bay ku tidhiye halkeenu goynaa noo dhib ha goyne markaasuu yidhi war qaysna ma yihiye haddaan idsii daayo albaabkaabu ka baxay صلي يا حبيبي midba mar sidii loogu imanayo mid walba uu lahaa war qaysna ma yihi adeer isii daaya ilaahay da taqaanaan oo halkaa uga baxayay ayaa isagii dhabta ahaa baa la dul yimid oo la dul taagay ma qays baa tahay markaasuu yidhi insha allah ha anigaa qays kuwa kalena wallaahi waxay yihiin garan maayo meeshoon bay igu yimaadeen oo gabadha waad jeceshahay ha waan jecelahay iyadna way jeceshahay dee waxay kaa tiri jirhkaaga badh ii soo goo halkeen goynaa noo sheeg wuxuu yidhi ayada ku noqdo ku dhahada halkee baad jecesha oo kuu soo gooyaa ka dhahada buu yidhi markaa bay tiri qayskii dhabta waa kaa ii soo saara bay tiri maxabada kuwa hore maxay ahayd been maxabada ninkana